horta aniga macnaha ardaydi macnaha goolka banaadir ay ka dhacday imtixaanka maadaama imtixaankii aan dhacay horta marka koowaad anoo qofba eedeeyeen waxaan eedeynayaa nafteeda marka waxaan qaatay go'aan macnaha oo geesinimo leh waxaan ku laabtay fasalkii aan ka dhacay iskoolkii ayaan dib u laabtay haatanna waxaan ahay ardayda goolka banaadir oo sanadka soo socda rabtay inay u fadhiisto imtixaanka shahaadiga heer qaran naftaada maxaad ku eedeysaa laakiin nafteeda waxaan ku eedayaa wax kasta markay dhacaan macnaha dadaalka aniga wax xaggii macnaha ka yimaado waa maanta qof aniga aan ku eedaya ma lahan macnaha waalidkii macnaha intaasna macnaha wax isoo baraayay waxay u eedeeyeen qaladkii inuu xaggii ka yimid haddana qaladkii waa dhacay qofna ma ku eedeeyay marka ardayda waxaan ku baaqayaa imtixaanka dhacdo sida anigoo kale macnaha inay ku laabtaan fasalkooda maadaama waxa macquula sanadka soo socda inay kaalintood u galaan gobolka Banaadir ardayda badan ama dad badan waxay qabaan in imtixaanka ardayda aanay aqoon darro u dhicin laakiin maamul xumo iyo saxitaanku wax ka qaldanaa iyo arrimo siyaasadeed ay sabab u ahaayeen marka adiga ma dul istaagtay oo natiijadaadii iyo intii aad ogeed ma isku darsato imtixaanku dadka ma dhicin mise waa la riday ma hadda waxaan leeyahay ardayda macnaha imtixaanka ku dhacday hadda wixii way dhaceen muddo ku adiga 8 kun arday ku dhawaa dhacday maanta qaqaylo waxay u taraysaa malahan aniga waxaan leeyahay wax allaale wixii dhacwaa dhaceen hadda wasaaradda waxaa la magacaabay wasiir cusub ana waxaan leeyahay fasalkiina dib u laabta quluubtiina macnaha dhisa waxa macquula mar labaad waxaan ku celinayaa inay kaalinta kuwaad macnaha ay galaan waxaan rajaynayaa sanadka soo socda goolka Banaadir kaalinta kuwaad inay u galaan waa macsan tahay way dhaceen waa in laga socdaa waa runta laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano ardaydu ma aqoon darre u dhaceen oo iyaga sabab u ah oo naftoodii eedaya mise imtixaankii dooda ka taagan oo dooda waxba ka jira adiga maxaa ogtahay wala hadda markay ardayda badan aan arkay ardayda isku fasalka ahayn waxaan arkay ciyaal badan oo aad u aqoon badnaa oo imtixaankii ay dhaceen ayaga qaarkood markii la wareysto waxay ku leeyihiin imtixaanka cadaalad darro ka jirta aniga maadaama marka aniga xaggii dhacay aan ku jiray aniga waxaan go'aansaday wax allaale oo dhaco macnaha imtixaankii aan ku dhacay inaan aniga aan qaato mas'uuliyad darrada maanta haddaan qalqayliyo wax ii soo kordhaysa ma lahan waxaan go'aansaday fasalkii inaan ku laabto ciyaal badan oo saaxiibaday ay waxaan ku dhiirigeliyey mar labaad inay fasalkooda dib macnaha ugu laabtaan marka mas'uuliyadda aad qaadanayso ee aad dush u ridinayso waxa weeye inaad weyse cid kuu garaawda inaadan ku qancin natiijadii laakiin si mustaqbalkaada aanu u lumin aad dib ugu laabanayso waxbarashadii saasaan u fahmay saas way aniga hooyaday waxay u soo korisay macnaha nyaanya u soo korisay oo rafaada lagu soo koriyay aabahayna waan iska waayay muddo oo 9 sano ayaan wax baranayay maadaama aan dhacay imtixaankii aan ku fashilmay waxaan dareemay habeenkaas waa murugo iyo walwal aad u badan ayaan dareemay waxaan aad u fahmay macnaha qayb kamid ah nolosheeda inaan qasaariyo ayaa habeenkaas macnaha ayaan la kulmay aniga haddana waxaa kasii murugoday walaashii aniga oo dhaltay oo iga yareed macnaha oo baastay haddana waalidkii waxaan kala kulmay macnaha rafaad iyo macnaha yacay la dhahayo adaa isyeelay adaa isdayacay marka waxaan go'aansaday dhaxda inaan xirto maamulka iskuulkiina u tago maamulkii aan ku cabaado aan dhahay waa maamule waxaan ku jiray ardaydii dhacday hadda maxaad ii qaban kartaa maamulka ii balan qaaday fasalkii macnaha inaan dib ugu laabto aan mar labaadna dhaxda aan xirto aan guul aan gaaro waxaa iga warantaa waalidka iyo qoyskaaga markii imtixaanka inaad dhacday loo sheegay maxaa isdhahdeen xaaladda siday ahayd habeenkii soo baxay natiijada imtixaanka in badan waalidkii waxay sugayeen maadaama 9 sano aan wax baranayay farxadoodu waxay ahayd wiilkooda inuu baasi doono markii aan geliyay roll numberka ayaa waxaan arkay inaan dhacay walaashayna ay baastay muddo saacado ah kooban macnaha waalidka waa ka qariyay ilaa wiil ilma adeernahay oo imtixaanka baastay aabahay u sheego aabana waxaa isleeyahay waa uu ku dilaya waxaa isleeyahay aaba ama uu ku dilaa habeenkii waxaan arkay aaba ay asoo niyada ka jabtay oo aad macnaha u xanaaqsan aabana dhiikar ayuu qabay macnaha waxaan isku day aaba in aan niyada u dhiso aaba waxaan dhahay ninka ragga mar hadduu dhaco mar labaad macnaha dhaxdoo xirto waa uu guuleysanayaa aaba waxaan dhahay xisni jibin heer aabahay aan wado aan iskoolka aan geeyo aan maamulay oo la hadlo maamulkiina aaba ayuu dhiirigeliyay wuxuu yiri wiilkaaga mar labaad wuu baasaya insha Allah marka aaba maxaa u sheegtay ma in waxa u sheegtay aqoon darro xaggaaga u dhacday mise waxa u sheegtay in maamul xumo iyo sidii wax loo maamulay ay dhibaato ka jiraan cabasho taagan tahay ay dhibaato halka ka timid maxaa ku qancisay waalidka waalidkii waxa ku qanciyay maadaama ay muddo 8 kun arday ku dhow macnaha gobolka Banaadir ay ka dhaceen haddana ardayda hadii la wareyso nin walba wax buu ku sheegayaa waalidkana waa uu dareemayaa nin maanta caasimada Muqdisho joogo inay maamul xumana waa dhici kartaa
حاب قلبنا وريك كذا هذا واحد كيسي حماري معناها دولتي أو تي معناها أرضي دعنا معناها تابو أي استعمالا أنا وأك حماري هذا أنا يقول هلا يولي الله واحد قشن كأكي مجرد مستقبل إفاي أيان لهاي أبينك مركز وقت أنا مغلنا والله آدي معناها أيان سواء الحماضة ما دام أنا هاي مستقبل كي وردن كأسر بحي اللي هذا معناها تابو أي أدعين marka waxa ku jira kumanaan arday oo shaqaalaha ku jireen ay nasrkooda qaluubtooda markii waxaas u dhacday qaar baa waxbarasho iskaga harayba oo xamaali iyo shaqada marka waxa iga warantaa nolol adag baa ku soo kortay sida ay sheegtay hooyada oo suuqa ku iibinayay yaayo ayaa ku soo korisay aabaha qof xanuunsan oo waayeel ay ugu sheegtay hooyo qalbigeeda iyo niyadda ama rajadii ay ka lahayd noloshaada maxaa ka dareento isbedel waxaan dareemay waxyaalo badan xataa waxaan dareemay xataa hooyada wajigeeda sidoo ay haajir ma aha hadda subaxii markaan soo kaco ay uniformki aan qaato waalidku in badan markuu isiriyo wuxuu leeyahay mar labaad hadda dhacdo ay ku taalaya waxaan dareemayaa macnaha waalidkay macnaha hamigii aan higsanayay waxay dhahayeen imtixaanka dad baasto wax walba ayaa lagu soo gelayaa maadaama hadda hooyo aaba aan la hadlo qof walba wuxuu leeyahay adaa isdeecay imtixaanka adaa dhacday eedeen fara badan ayaan dareemayaa anigana waa qaataba hooyadayna macnaha waxaan isku dayay niyaddeeda inaan dhiso aan dhahooyo wixii waa dhaceen insha Allah mar labaadna ma dhacayso hadda waxa iga warantaa dib ugu laabatay daraasadii qorshahaaga go'aanka qaadatay ama jadwalka nololeed waa adeegsatay waa sidee hadda waxaan degsaday hebel aniga dadaalkayga aad ugu fiicnaa waxaan go'aansaday dadaalkayga macnaha in aan sii karaariyo macnaha aan dadaal qaato hadda kan iskoolka macadka markaan ka soo baxo 6 saac iyo 20 ayaan ka soo baxayaa 9 saac iyo hadana waxaan aadaa meel maadooyinka oo scientific lagu barto waxaan bixiyaa dadaal oo aad macnaha u badan hadana waxaan ka baqayaa mar labaad in la dhaho waa dhacday taas macnaha ayaan ka baqayaa habeenkii xataa nafsadeeda xataa waxaan ku sigtaan kula inaan qalqal macnaha inay gasnafadeeda waan isdaji Allah ayaan bariyay marka waxaan go'aansaday waxaan xukun Ilaahay ii qoray inay igin ugu dhaceen waaya marka maxaa isleedahay hadda way isbedeli kartaa xaaladda maadaama hal sano dib u dhacday nin dhalinyaro soo koray ahayd waqti iyo xaalad aad wax ku soo bartay maxaa isleedahay noloshaada iyo mustaqbalkeedu u ahaanaya والله هذا waxaan isleeyahay hamigi aan lahay maadaama oo hoos u dhacay wali rajada aan ka qabo macnaha waxbarashada ma marna hadda waxaan isleeyahay muddo waxa iga dhacday 9 sano ayaan wax soo baranayay dib ayaan u laabtay mararka qaar quluubteeda waxa ku soo dhacda macnaha ardaydi aan wax la baranayay fasalkii macnaha form 4 ka ahay oo ka qalin jibi markii ay tageen waxa levelka hadda form 4 ka ah ebel wuxuu ahay form 3 ay ardayda xataa waxaan ka dareemayaa macnaha hadallo macnaha oo daciifnimo inay dhahayaan shalay ninkii dhacawaataasa tusaale in la soo qaadanayo ardada markii aniga waxaan dareemaa inaan macnaha aan dareysiinin inaan ahaynin shalay imtixaan dhacay ayagana waxaan dhahaa hadda imtixaan ayaa ku soo wajahanay iska ilaaliya galaaska ama imtixaanka daladaha ay qaadaan ama iskuulka ay ka qaadaan kan dawladda ma ahayd darajo noocee keeni jirtay kaalintee geli jirtay ama numberkee ahayd percentage intee ku dhaafi jirtay ama natiijada ahaan jirtay percentage marka ugu waxaan keeni jiray 70% ama 80% hadda imtixaanka oo dalada hadda oo form-4 aan galay waxaan keenay 80% aan keenay afrikii waaya marka ardayda kale ee adiga kula midka ah imtixaanka la reebay ama aqoontoodu ay reebtay maxaa kula talinaysaa hadda ardayda waxaan kula talinayaa maadaama ay yihiin jiilkii wadanka u soo kacayay maadaama la yiri imtixaanka waa dhacdeen أنا وحلاي مستقبل كينا ما دام أنت أصلا أروح صبر نيسين مستقبل كينا ما الله إنه كل مرة هو ليش رجع وحالها والله دعي مرتي وادع على مرتي الله يوم فقع وحالها ديزان وحالها إنه لحظة حرت عيال سواء وحلاي هاي وحكي قارئ إن ديزان لحظة أيام حرنا إن وصلت توسع الحرجية زول كبنادي أنا نقول معناها زول كأو معناها دنك كالنت وإنه خجل الصومالية waa maasanta wasiirkii waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo arday badan tabasha ka qabaan ama ay in muujinayaan waxa la sheegay inuu dalka Turkiga ku xanuunsan yahay maxad leedahay wasiirku waxa leeyahay Allah caafiyo ani hada qof aan eeday maanta ma jirto wasiirku waxa leenahay wuxuu ahay wasiirkeena waxbarashada Allah caafiyo aniga caawa aniga macnaha aniga ra'yigayga caawa qof aan u qabo macnaha cudud malahan waana casiin الله عافية الله وما سنت وحن كور جينيا قول وأنا هو بينات قولي صدمت إن شاء الله هذا ذلك هل كان كسي وضع إن شاء الله